soo dhawaada wadayaal garoonka weyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari maanta wax diyaarada kama soo degin ciidamada BSF tana dignin kale ayay mar kale soo saareen oo dadka agagaarka degan garoonka shacabka ay uga digeen in halkaasi aysan sii joogin ay ka fogaadaan macnaha oo meeshan garoonka agagaarkiisa ay ka fogaadaan ayay fareen dhaqaaqyo ciidan baa halkaasi ka taagan ciidamadan BSF ta waxa ay digniin ka bixinayaan in la isfara saari doono sida hadda ay digniinaha u soo saarayaan markii la akhristo ciidanka kaleeto ee militariga waxa weeye Puntland ama ciidamadan kaleeto ee taabacsan xukuumadda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danina iyagana magaalada dhexdeeda ayay joogaan oo kama dheeraan garoonka qaybo kamidana iyagaaba maamulaya xaalad adag baa halka ka taagan xiisad dagaal ayaa halkaas ka aloosan waan dul istaagi doonaa waxaan dhanka kaleeto iyadana eegi doonaa dawladda federaalka ee Soomaaliya doorinteen leeg ayay ku leedahay ciidamadan iska soo horjeedaysa yaa kala xukuma kuwan waa la gartay garoonka hadda qaybo kamid kaga sugan oo xukuumadda ayay taageersan yihiin kuwan diidanayeen dadka waxa weeye ha laga saaro ha ka fogaadaan garoonka iyo diyaarad kama soo degi karto cid soo degi kartaa ma jiro xagay ka amar qaataan yaa kharashkooda bixiya yay ka amar qaataan maxay yihiin ma dawlad kala soo dirsatay ma ciidamo gadooday oo ciidamadan ka goostayba oo maamulkan ka goostayba maxay yihiin ayagana ciidamadaasi yaa ku lug lexiisadan asbuucan gudihiisa ka aroosan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waan dul istaagi doonaa iyadana sababaha ay u baaqdeen diyaaradahan ma digniintaas jirtay ma cilad kale iyada naftirkeeda dhacday waynu eegi doonaa dhanka kale to fanaanadii weyneyd ee Safiya Tusmahayde ree awdal xalay ciidamo ayaa u daatay gurigeeda iyadoo maalin ka hor bay ka ambabaxday magaalada Hargeysa oo si dhow Malaysia ayay diyaarad uga raacday gurigeedii ay ka deganayd Boorama iyo gurigii ay ku ganacsanaysay dukaankeeda ahaaba labadaba dab baa la qabadsiiyay carwadeedina waa la gubay gurigeedii kalena waa la gubay dhulkii saaka galangal baa laga dhigay iyadana wadanka de maalmo ka hor bay ka baxdayo markay xogta heshay in loo soo socdo yaa isu dhow Malaysia Soomaaliba intay isku tagtay bay Hargeysa looga dhoofiyay iyadana waan dul istaagi doonaa ciidamadaasi iyo cidda soo dirtay iyo sababta loo uwaarsanayo fanaanadaasi mid iyo laba ka oran doona dhinacan kaleeto waxaan iyadana xog inay ka wadaa xildhibaan Maxamed Abiib oo maanta la 15 bari niman isaaqa u afduuban isagana meeluu ku dambeeyay waan dul istaagaynaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay garoonka weyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waa garoonka diyaaradaha maanta wax diyaarada kama soo degin laba arrimood baa la isku hayaa diyaaraduhu dhanka shirkadaha ayay ka baaqdeen waa la leeyahay dhanka xiisada ciidamadan ka soo horjeeda ciidankan xukuumadda ka soo horjeeda kale BSF tana iyagana digniintay bixiyeen sabab ay u noqotayna waa la leeyahay si kastaba laakiin garoonka maanta wax diyaarada kama soo degin kuma dheeraanayno dhinaca dawladana go'aan kama soo saarin dhinaca shirkadana sababta ay u baaqdeen kama aysan hadlin laakiin waxa la xaqiijiyay in maanta garoonka aysan wax diyaarada ka soo degin dhanka kale to mar kale ciidamada BSF tu digniin bay soo saareen waxay u digeen shirkadaha duulimaadyada oo ay uga digeen inaysan diyaaradooda meeshaasi ku soo hadlayno aysan ka soo degin waxay sidoo kale to u digeen dadka shacabka agagaarka garoonkaasi degan oo ay ugu baaqeen in ay goobtaasi ka fogaadaan oo macnaheedu ay tahay meesha waa lagu dagaalamayaa ka fogaado ka guura oo garoonka agagaarkiisa ka guuray leeyihiin ciidamadan kale ee xukuumadda ka amar qaatana de garoonka agagaarkiisa iyagana la dhoobay oo dhooban yihiin oo de amniga ilaalinayaan oo magaalada dhexdeeda ay joogaan oo shaqadoodii bay wataan oo amar baa lagu soo siiyay kuwan BSF tana way ka soo horjeedaan oo iyagana waxay leeyihiin garoonkan anaga maamulayna anaga ayaa garoonkan maamulayna cid aan anaga ahayn ma maamulaysay taagan yihiin arrimaha la yaab kala waxay tahay wariye Puntland dad nabad jecel badahaydeen oo xagga nabadda ka taliyo garta gooyo oo aan waxa weeye kana garle aan dhihin badahaydeen sidee wax u khaldabeen muddo asbuuca ka soo wareegatay ciidankii waa is hor fadhiya wiilkuna markuu qorigana u cabaysan yahay laba khasnadood ugu xidhan tahay laba khasnadood markuu wiilku qoriga ay ugu xidhan tahay hal khasnadood buuxda ay ugu xidhan tahay cabsi ma dareemo wiilashan intay iska hortagayaan xabad isla dhacayaan miyaa la sugayaa maxay tahay sababta looga aamusay awoodayaashii dhaqanka awaysimadii maxaa arrintan loo xalin laayay waa arrin la yaab kale mid labaad
wiilashan hanjabaya BSF ta leeyahay way hanjabayaan waxa la leeyahay sidana yeelan dhulka reer Puntland ma laba dawladood baa u doorateen oo ka talisa reer Puntland laba dawladood miyaa ka taliso ma laba xukuumadood baa u doorateen away ninkii dhulka loo dhaariyay away xukuumadii loo dhaariyay away dadkii la yiri waxa weeye mas'uuliyadda ay saarnayd away maxay tahay ciidamadan amarka soo saaray la garoonka laga soo degi karo waa la isku dagaalayaa waxa weeye amarkaanadu ha shaqeeyo leh maxay ahaayeen yaa sideed damirkiinu u ogolaaday ma dawladii dhanayd baa la rabaa in wiilal yar oo meel istaagay oo meel kale laga faangareynayo inay shaqadii dhanayd ee bulshada loo hayay ay joojiyaan waa ayaan darro horta ayaan darro weeye odayaasha dhaqanka ee waxgaradka waxaan leenahay arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan ha la galo waxa la yiraahdo meesha qabiil kama taliyo waxaa ka taliya meesha xukuumad mandate haysata 5 sano la siiyay Saciid Cabdullaahi Deni madaxweyne u yahay taasa ka talis annagu taasaan garanaynaa dhalinyaradan kibirsan ee qoriga la didaysa waa in sida ugu dhaqsiyaha badan talaabo laga qaado arintana waa in la xaliyo ciidamada BSF ta ciidamo fiican oo lagu faantabo oo reer Puntland muhiimad weyn u hayay jireen laakiin waxa muuqata hadda inay gacmo kale ku shaqaysanayaan xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ku shaqaysanaya oo doonaya reer Puntland in lagu burburiyo amnigooda lagu haleeyo shacabka lagu laayo dadka lagu qixiyo umada lagu barakiciyo garoomada lagu haleeyo dakhliga lagu weeqo iyo awoodda dawladda iyo meelaha sooskay wax ka soo galay lagu weeqo gacmahaasa ku jiray reer Puntland oo arinta iska gaadha odayaasha dhaqanku arinta ha xaliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan wiilashaasi kaba waaweyn baa loo soo galiyay dad kale taa waxa weeye ku shaqaysanayeen doorkii ay lahaayeen iyo shaqadii loo idmaday ee bulshada ay u qabanayeen ha qabtaan taas weeye ciidamada BSF ta dad bay soo weydiin waxay leeyihiin maxay ahaayeen waxay ciidamadaas waa ciidamo ka tirsan Puntland gacantana waxa ku haya wadamo shisheeya gacanta ku hayo mishaarkooda siiya marka taasna waa taayadana hal ogsoonaado waliba gaar ahaan haddaan niisi bayaamiyo Mareykanka gacanta ku haya niman ilma diyaana la yiraahdo iska haysto mid xataa lagu tartamo oo bulshadu ay u siman tahay ma aha kolban in diyaana baa loo dhiibaa anu ma aqaan sababta waxa weeye hal qoys ciidan dhan oo maamul ka waxa weeye maamul deegaan dhan u shaqeynaya hal qoys sababta uu 30 sano iskaga haysto anu taa garan maayo laakiin si kastaba haba haystaanba laguma haysto oo reer Puntland waa dad samir badan oo way u samreen haddana in amnigii qalqa lagu galiyo bulshadii laga horkeeno la yiraahdo waxa weeye garoonka Boosaaso ma shaqeynaya waa ay hadda waa falxumo wey war maamul baa tihiin doorashaad gasheen nin baa ku guuleystay xukuumad baa maamulaysa waxaan idinkaad sheegaysaan ay reer hebel aad leedihiinna qabiilka aad ka dhigaysaan qoyskaan annagu inimaba aragnaba bayni aragna qoysba anaga reer Puntland oo dadka degan hal qoys baan u naqaanaa hal qoys kaliya aniga waxa weeye daaroodka hal qoys baan u aqaanaa inay degaan reer Puntland oo dhanba ay degaan aniga hal qoys badagteeda ka tahay Soomaalina waxaad ka sitay jufayar baad ka tahay Soomaali markii ay Soomaalida kala loo fiiriyo hada ay fiiriyaan jufayar nabadaada ninna ma rabo amnigaada ninna ma rabo horumarkaada ninna ma rabo waxaad qabsanaysa ninna ma rabo qoryahan adaysa ninna ma rabo inaad qaxdo barakacda nin walba shaahiisa ugu jira dad baaba waxa weeye ku faantabay waxaynayo dabada ka riixaya adigana waa kaasoo qoriga la ordaysaa أروح أسكف على ريبوتران هو أرنتنا سيدا ودق سيا بدن وضياش وهجلان هانا لحاليا دليرنا الله ده مركز سيدا له لا السعودة دليرنا وي واحد الله ده يعني ريبوتران واحد الله ده ليه أديكا نبض هذا يستطيع واحد هذا يستطيع لقى حياه بعد أديكا أنا بحاول يقولي بدور تيسايو وكاسو جرام كاديو ديانا دي كوي مانا يي شعب كاجس ودق يي دخل قاعد هير يسي سحمتي كنحسي كلا السعودية بعد يا ويق يسايو وحاول أظهر استاجيسا مركا Soomaalida kalena waxay leedahay war meesha balaayaad tumiya marka taa la socda dhinaca kale to ciidamo ka amar qaata taliska musabixi ayaa xalayto waxa ay u daateen gurigii fanaanadii Soomaaliyeed ee Awdal Safiyatusmo maalmo ka hor bay waxay ka ambaxday magaalada Hargeysa oo si dhow Malaysia ay diyaarad uga raacday kadib markii ay heshay xogta ah in lagu soo wajahan yahay Safiyatusmo gurigeedii horta xalay dab baa la qabatiyay waa la gubay carwadeedina waa la gubay oo iyadana dab baa la qabatiyay oo hinteedana waa daragteen baraha bulshada u maleynaya wax yar qaybo kamid ah waatan iyadoo ooyinaysa soo wareey 3 gaari oo ciidan xalito waxa dab la kaliyay mehertaydii bagaalada qoraba carwadeedii waa la gubay gurigeedii xaafadda waa la gubay dab baa la qabatiyay banaan baa laga dhigay banaan anu ma garanayo dukaan dhisan iyo guriyo dhisan
sababta waxa weeye loo gubayo ciidan dowladnimo isku tilmaamayo uu u gubayo qof bay xidheen oo way raadsadeen oo way soo qabteen waa la gartay laakiin ganacsi iyo guryaha dhisan baa la gubayaa oo dab la qabadsiinayaa anigu horta arrintaa ma garanayo ciidamo ka amar qaata taliska musabixi ayaa xalayta guryahaasi gubay oo dab ku shiday sida xogta ugu soo gaadhay ee aan ka helnay magaalada waxa weeye Boorama horeyna waxaad u ogsoonaydeen xildhibaan maxamed abiib oo reer Boorama oo niman isaaq oo afduubay 15 bari ilaa hadda uu afduubay meel ku xidhan yahay xasaaradii lagama qaadin xasaaradii waa istaa waa xildhibaan maxkamad lama geynin waxa weeye xildhibaan golaha wakiilada waxay dhaheen waxba kama jiro waxaad aad wadatay leedo waa la diiray dalabka ka imaaday xiriiryaha guud ee Somaliland iyo qorshihii Musabixi waa lagu diiday laba jeerba waa lagu diiday shalay go'aan kale xil soo saareen golaha wakiilada waxa ay Musabixi naftiisa xilka qaadis ku sameeyno oo mooshin aan ka keeno maadaama sharciga uu ku tuntay arrin adag baa waxa weeye halkaasi horta ka taagan reer Boorama waxba looma reebanin fanaaniintii waxba looma reebanin xildhibaanadii waa kuwa xidhan wasiirro horey la yiri afka intii laga galiyay sigaar la yidina waan ogaa waxa la yiri orod reerkiina aad iyo meeshaad ka imaatay anaga Hargeysa aan agta taagnaanin dhulka anaga iska leh waa wasiir radaya wasiir dhan way marka dulmiga wali wax socda xukuumadii Musabixi oo waqtigeediba u dhamaaday dulmi bay wadi wadaan waliba nimanka isaaqay waxa weeye shanta afarta ay ugu waaweyn madaxweynaha iyo KS sirdoonka iyo ka taliyaha booliska iyo midka militariga iyo ka maxkamadda iyo shanta nin iyo ka xeer ilaaliyaha guud shantii nin ee ugu waaweyneed baa niman isaaq weey shantaas baa dadka kale madaxay doonayaan inay kabta kaga hayaan madax dulmi inta leeg ma aragtaadi fanaanadii dhulka waa la gubay carwadeedii gurigeedina waa la gubay reer Boorama anigu marka waxay tirsanayaan garan maayo waxay sugayaan inta gabdhaha yar yar guryaha inta lagala baxo laga ku kufsan bay sugayaan baan maray inta bay sugayaan inta bas ay yahay reer Boorama inta bas ay yahay waynu eegi doonaa daawadayaal dhanka kale xildhibaan maxamed abiib 15 bari ayuu iyay maanta u tahay oo uu afduuban yahay nimankii saaq oo meel uu ugu jira xogaana soo gaaray waxay sheegayaan in lafta dhabarka dhaawac uu ka soo gaaray oo dhaawac uu yahay oo waxa weeye dhaawac waliba aad u adag u yahay eheladiisi waa loo diiday inay u tagaan familkiisa oo dhan waa loo diiday inay u tagaan siyaasiyiintii waa loo diiday kuwii macaaradkana inay u tagaan waa loo diiday laakiin ciidamada gacanta ku haya qaybo kamid ah ayaa xogta soo dusiyay oo sheegay in lafta dhabarka dhaawac aad iyo aad u weyn oo ninkaasi ka soo gaadho qoriga dabadiisa ay la dhaceen waxa dhanka kale la sheegayaa in koronto lagu qabtay isagoo been laga raadinayo oo korontadii iyadana ay wax u dhinto waliba xiliyaha iyo meelo badan lagaga qabtay xildhibaan maxamed abiib xaalkiisu waa sida wali waa xidhan yahay meeshaas ku jira waynu eegi doonaa daawadayaal wixii ka soo kordho muqalladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa haddii alla idin